Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow Aflax Online School oo aad ka barataan luqadaha kala duwan sida afka Ingiriisiga iyo afka Soomaaliga. Mar walbana waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu idiin soo gudbino casharro tafaftiran oo ku baxaya luqadiina afka Soomaaliga. haddaad dabcadid inaad qaadatid galaasyo gaar ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa mar walba bartaanu ku leenahay Skype-ka adigoo haddaad doontid fariinta noo soo marin karaa emailkayaga afkayga@gmail.com. waxaana mar walba soo booqataa shabakada aflaxonline.com. haddaba casharka maanta oo ah buugayagii bilowga ahaa aynu halkii kasii wadano. waxaa casharkan aad ku baran doontaan sida loogu sheego qof magacaaga, meesha aad ku nooshahay, halka aad iskuulka aad ka dhigatid, waxa aad baratid, waxa aad samaysid markii aadan iskuulka joogin, iyo sidaasoo kale bacdal iskuulka waxa aad qabatid. casharkan dhammaadkiisana waxaan ku baran doonaa sida loo weydiiyo qofka su'aalaha asaasiga ah sida magaca qofka, waxa uu sameeyo iyo halka uu ku nool yahay. aynu bilowna casharka hoose. My name is Warsame. magacaygu waa Warsame. I live in Minnesota. waxaan ku noolahay Minnesota. I go to school. waxaan aadaa iskuulka. At school, iskuulka. I study English. waxaan ku bartaa Ingiriis. I read books. waxaan aqriyaa buugaag. On Saturday, maalinta Sabtida, and Sunday, iyo maalinta Axadda ahna, I sleep. waan seexdaa. Sabtida iyo Axaddana waan seexdaa. Then markaa kadib, I run and swim. kadibna waan ordaa waana dabaashaa. I go to madrasa in the afternoon. galabnimadana waxaan aadaa madrasada. I like Minnesota. waan jeclahay Minnesota. haddaba sidee loo weydiiyaa qof su'aalo adigoo markaa jawaabtaasoo kale bixinaya? qofka haddaad doonaysid inaad weydiisid magaciisa, waataan hore usoo baranay qaabka ugu sahlan inuu yahay what's your name. What is your name? muxuu yahay magacaaga? Where do you live? xagee baad ku nooshahay? xagee ku nooshahay? Do you go to school? ma aadaa ama ma dhigataa dugsiga? Do you study English? ma barataa Ingiriiska? miyaad barataa? What do you study? maxaad barataa? waa haddaad qofka aad weydiinaysid waxa uu sii barto. Do you read books? buugaag ma aqrisaa? What do you do on weekends? maxaad qabataa labada maalmood ee Sabtida iyo Axadda oo in dabcan shaqooyinka jirin? maxaad qabataa maalmaha Sabtida iyo Axadda? Do you exercise? miyaad jimicsataa ama ma jimicsataa? Do you go to madrasa? ma aadaa madrasada? Do you like Minnesota? ma jeceshahay Minnesota? halkanna waa qaar ka mid ah erayada ficilada ee ku jiray casharkaanu maanta baranay. erayga live waa nolol ama nool. Go bax ama aad, bixidda ama aadista. Study barasho. Sleep hurdo. Run orod. Swim dabaal. aynu dib ugu noqono annagoo markana eegi doono qaybta naxwaha ee casharka maanta ku jirta. haddaad fiirisid magacayga, my name, magacayga is Warsame. calaamadda aanu casaynay ee is aynu saarnay casaanka is waa waxa loo yaqaano verb to be, oo waxaa la yidhaahdaa ficilka ama falka ahaanshaha. I live, halkaa I live iyaduna waa ficil oo ah waa nool, meesha aad ku nooshahay. I live in Minnesota. waxaan ku noolahay Minnesota. in waxay ku muujinaysaa gudaha inay tahay. I go, ereyga go isaguna sidaasoo kale waa ereyga falka ah ama ficilka ah. I go to school. waxaan aadaa iskuulka. ereyada kale oo ficilada ku jira ee aan idiin calaamadeeyey waxaa ka mid ah I study English. ereyga study waa falka oo waxa aad samaynaysid. I study English. waxaana markaa loo isticmaalaa Ingiriiska. aydu waxay u taagan tahay waxa loo yaqaano
pronoun oo ah magacuyaalka, studyna waa ficilkii ama falka, Englishna waa magac oo waa luuqadii aad baranaysay. I read books. Ereyga read waa akhrin oo ah waa waxa aad akhrisid. Waa iyaduna waa ficil. I waa magacuyaal oo waxay matalaysaa adiga. Halkii aan ka oran lahaa Axmed ayaan waxaan leeyahay I aniga. Read waxaan akhriyay. Books buugaagta ayaan akhriyaa. Sidoo kale ficiladan oo dhan ayaa waxay yihiin ficilada loo yaqaano simple presentiga. Waa wax mar walba aad samaysid, sida I study English waa waxaad mar walba samaysid oo aad baratid. I read books waa waxaad iyaduna sidaas oo kale mar walba samaysid oo akhrisid buugaag. Ka ku xiga on Saturday maalinta Sabtida and Sunday iyo Axadana I sleep waan seexdaa. Sidaas oo kale waxaan calaamadaynay ereyga sleep oo isaguna ah falka aad samaysid maalmaha aadan shaqaynayn ee Sabtida iyo Axadda. Ka gudub aynu u gudubno jumladaha ku xiga. I run. Ereyga run waan idin calaamadeeyay oo isaguna waa falka oo waa I run waan ordaa and I swim. I run and swim waan ordaa waana dabaashaa. Ereyga waxaa la dhex isticmaalaysaa labada ficil dhexdooda iyo ereyga ku xiga I go to madrasa waxaan dhigtaa madrasada in the afternoon galabnimada. I like Minnesota waan jeclahay gobolka aan ku noolahay ee Minnesota. Halkaa waxaad ku bedelan kartaa magaalada aad ku nooshahay ama magaalada aad jeceshahay. Ugu dambeyntii haddii aad jeceshahay in aad luuqadda Ingiriiska aad korsatid waxaad nagala soo xiriiri kartaa aflaxonline.com emailka aanu ku leenahay annagoo casharkayaga hab maqal iyo muuqaalba aad ugu qaadan kartid Skype-ka ama habab kale oo casriga ah. Waxaad sidaas oo kale ka dhageysan kartaa telefoon nambarka shaashada ka muuqda haddii aad ku nooshahay North America. intaanu ku kulmi doono barnaamij kale waa anigoo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.